adduunka waxaa ka buuxa dad doonaya inay guulaystaan. internetka waxaad ka heli doontaa malaayiin muuqaallo ah iyo malaayiin maqaallo ah oo kuu sheegaya waxaad samayn lahayd si aad u gaarto guul iyo raynrayn. qof kasta oo dhulka ku nool heer kasta uu joogo wuxuu doonayaa wax badan inuu ka helo nolosha. haddii aan taa ka imaanno, maskaxdaada waxaa loogu talagalay inay korto si aad wax u barato una guulaysato. nasiib darrase in yar oo inaga mid ah ayaa ku dhiiradaa inay u dhowaadaan awooddooda dhabta ah. haddii noloshaadu ay bilaabayso inay u socoto jiha aadan rabin, adiga ayay kugu xidhan tahay inaad tallaabo ka qaaddo. qofna uma imaanayo inuu ku badbaadiyo. halyayga aad raadinayso ka dhex eeg muraayadaada una qabo hoggaanka noloshaada. labadan qodob iga qabso si aad casharrada nolosha wax kaga barato. tusmada koowaad, ilaali wakhtigaaga. haddii aad rabto inaad noloshaada gebi ahaanba beddesho, waxaad u baahan tahay inaad ilaaliso wakhtigaaga maadaama ay noloshaada ku xidhan tahay. jooji la socodka dadka aan kugu caawinayn inaad guulaysato. jooji samaynta waxyaalaha aan kugu kordhinayn farxad iyo raynrayn midna wakhtiga la joogo iyo mustaqbalkaba. mar kastaba waxaa suuragal ah inaad samayso lacag badan, laakiin ma samayn kartid hal saac oo dheeri ah. noloshu si degdeg ah ayay u socotaa. ee ka faa'iidayso wakhtigaaga. joogteena inaad noqoto mid habaysan had iyo jeer. maalintaada horaanteedaba ku bilow qorshe kana takhallus waxyaabaha wakhtiga kaa luminaya. tusmada labaad, had iyo jeer lahow kalsooni. marna ha iloobin in dad kale ay guulo waaweyn ka gaareen duruufo ka sii daran waxaad la kulmaysa maanta. waxaa jiri doona dad xun oo aad jidka ku sii mari doontid. ha noqon mid iyaga ka mid ah. dad badan ayaa u adkaystay wakhtiyo adag si ay noloshooda wax uga beddelaan. adiguna waad awooddaa. xusuusnow, haddii aad rabto inaad barato qaabkii aad noloshaada u beddeli lahayd gebi ahaanba, waa inaad bilowdaa inaad beddesho fikradahaaga iyo caadooyinkaaga. ka bilow maskaxdaada maadaama ay maamusho dhammaan qaybaha kale ee noloshaada. dhammaan waxyaalaha yaryar ee aad samayso maalin kasta way is ururin doonaan oo waxay abuuri doonaan isbeddel weyn.